badbaadiyey wixii berrito ummadda aan wax ku badbaadin lahaa wuxuu leeyahay abaalmarin iyo bilad sharaf reer balcad guud ahaan gaar ahaan dadka shaqaalihii warshadaha waa wax u baahan runtii taariikh buugaag laga qoro waa wax u baahan in la soo bandhigo waa wax u baahan in lagu faano way annagana kow waana soo bandhigaynaa waana ku faanaynaa waana garab istaagaynaa xaqiiqii waxa waa ognahay warshadihii dalkaanu lahaa meesha ay ku dambeeyeen waa naqaan waxa dadka waddada ay mareen adinka idinka leexiyey ee idin diiday waa damiirka waa wadaniyadda waa islaamnimada waa wanaagga aad jeceshihiin ee aad degaankiinni dadkiinnaba la rabtaan xaqiiqdu waxay tahay waxaan indhayga ku soo arkay anigu waxay ahayd qaybo badan oo warshadda ka mid ah oo weliba shaqaynaya iyo kuwa haddaba la dhaqaajin kara hadduu ilaahay yidhaahdana warshadaanu waxaan allagu dhaqaajin karno haddaaba dhaqaajinaya noqonayso keliya wax sheeko ah laakiin waxay ku istaagay qaybo ka mid ah warshadda oo hadda shaqayn kara hadduu ilaahay yidhaahdana waa ka shaqaysiinaya waxaa soo raaca waxa waaye runtii khayraadka ay hirshabeelle leedahay kuwa la soo koobi karo maaha khayraadka ilaahay la siiyey kuwa la soo koobi karo maaha waxaa lagu waajiba inaan ilaahay ku xamdino waxaa lagu waajiba inaan ilaahay ku xamdino sidaa ilaahay ugu xamdinay cadaalad oon ilaalino inaan shaqayno inaan waxa ilaahay la siiyey inaan ku manaafacaadno inaan ka shaqayno u istaagno siyaabaha ilaahay loogu xamdinaya ma aha keliya masaajidka fadhiisanaya tusbaxan qaadanaya waxa waaye khayraadka aan leenahay inaan soo saarno inaan gaajada ka baxno ogaana ilaahay waa nala xisaabtami doona khayraadka uu la siiyey inaan ka baahnaano oo aan gaal markaa gacmaha u horsanno oo aan dhahno mucaawinahna loo keeno runtii waxa waaye waa يعني waxaan noqonaynaa dad ka fogaaday yani khayrka ilaahay siiyey arki waay annaga waxa waajib ugu ah deegaanka dowladka hirshabeelle khayraadka ilaahay uu siiyey inaan sida ugu dhaqsiyaha badan ugu dhaqaaqno ka shaqayno inaan soo saarno cidnana aynan ka yeelin waxaan iska dhaafay alaha badan ee dasgaleehinkeeda xaqiiqdu waxaa marar badan haddaanan si toosa lagu dhihin si dadban ayaa lagu leeyahay war aniga galley mucaawinaha shuruuray naloo keena waxaan ka jecelnoo ka rabnaa in maxuu ahaa kanaaladii la qodo waxaan ka rabnaa in maxuu ahaa yani horumarka in warshadii la kiciyaan rabno waxaan rabnaa in maxuu ahaa ammaankii annagaa ku filan inna lagu kaalmeeyo lagu garab istaago hubka aan u baahanna laakiin in la yidhaahdo anaa idin qabanaya adigu gacmaha isa saarta taas waxaa la rabaa inaan maanta wixii ka dambeeya inaan ka ducaysano sidaan uga bixi lahayn aan ka shaqeeyo runtii dalka guud ahaan xaalad abaareed ayuu ku jiraa xaalad aad u culus ayuu ku jiraa waxaa lagu waajib ah inaan addoommo ilaahay aan nahay inaan ilaahay gacmaha u hoosano ilaahay uu naga bixi ilaahay uu naga saar amiin ilaahay uu naga saar amiin ilaahay uu dadkeena diinayna ku lacanaya ilaahay uu roob ilaahay uu roob ilaahay waxaan wuxuu ahaa guud ahaan waqti saacad guudaa lagu jiraa waqti hore ayaa timaadeen waxaan aad ugu mahadcelinayaa mar kale bulshada reer Balcad ardayda hadee runtii wax lagu farxaa ciyaartooyda iyo muuqata hadee gabdhaha hadee runtii odayaashii cuqaasha hadee ciidamada ammaanka hadee runtii wax aad iyo aad ugu farxo anigu insha allahu tacaala wax degdega inay soo baxaan oo subaxii anoo jawhar joogo subaxii hal saac iyo laba saacna diyaarada imaanaysa jawhar xamara laga rabaa oo degdega inay dhacdo haddii kale jidkaana jidkaygii noqonaya balcadna anuu ku soo leexdo insha allahu tacaala waxaa loo ballan ah annaguna wax qabad inaan u istaagno ama waddada ha noqoto ama warshadda ha noqoto adinkana mudnib sidaa midnimada aad ku badbaadsateen warshadda waadna ku nacfin doontaa
كل عفوا دونتان سيدا ميدانا بدمينو dad isku duuban dad gacmahooda ku dhisanaaya waxa ay dhulkooda inaad noqotaan dad isu gargaara inaad noqotaan dad isku xiran inaad noqotaan dad madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo maamulkooda ka dambeeya ku xiran inaad noqotaan anigu intaas aan ugu dardaarmaya wixii aan ballan qaadnay oo balcadana hadduu ilaahay yidhaahdo waa u taaganahay waana ka shaqaynaya aad iyo aad ayaan kale mahadcelinaya waa mahadsantihiin kulligii dhammaanteen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu